بسم الله الرحمن الرحيم marka la wadi salaamaya aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa xildhibaanada sharafta badan oo muxuu ahay sheegay su'aalaha aad ku qiimaha badan oo weydiinayay oo uga mahadcelinaa iyadana waxaan rabaa inaan aan ku laabto xildhibaankayga qaaliga ah xildhibaan maxamuud waxaan rabaa gudoomiye iyo xildhibaan maxamuud inaanan anigu marna aanan qalbigayguna isii karin igana suurtageli karin inaan qabyaalad ama hadal gaf aan ku tilmaamo haddii uu dhinacaas u qaatana raalli ahaw xildhibaankayga qaaliga laakiin waxaan rabaa arrinta ay taabata waxay tahay nin sargaala oo xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo mas'uuliyad iga saaran tahay oo 114 kitaab jaamacan gacanta u saaray inaan cadaalad ku maamulaayo haddii yan la igu aamini waayo muxuu u heestaysan yahay la yidhaahdo taas ayaa waxay iga keentay in aan laga yaabo inaan si kale u dareemo waxaa kaloo rabaa inaan hadal kale caddeeyo aad u weyn waa u soo socdaa xildhibaankayga qaaliga xildhibaanada sharafta leh dhammaan waxay joogaan dalka waxay la socdaan xaaladda dalka sargaalku wuxuu ka mid yahay saraakiisha Soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mas'uuliyadaha kala duwan qabanay waxaa jooga saraakiil qabata taliya qaybiyo waxaa jooga kuwa qabta taliyaal guuto waxaa jooga kuwa qabta taliya ururo iyo jagooyin kale oo kala duwan iyo hogaamiye iyo waxyaabo caynkaas staff iyo gaadiid ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu qorsheeyay iyo guryo saraakiisha xilalka ka degta oo ugu talagalay ee meel u taale la leeyahay sargaalka gaarigiisu waa kan xilka markuu ka tago staffkiisina waa kan horta ma jirto waadna ogtihiin waxaana keento marxaladda dalka ka jirta saraakiishaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sargaalku ka mid yahay wuxuuna xaq u leeyahay markuu ka soo tagay ururka uu madaxda ka ahay unitka loo bedelay qof iyo labo staff inuu ka wato cid u diidana ma jirto iyo meel loogu diido saraakiisha meesha kala tirsanona la mid yahay waxaan rabaa marka tan abnigiisana waa taas gaadiidka laga reebay gaadiidka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sida uu ku soo galo iyo inta uu la egyahay aad ula socotaa taas ayaa waxay keenaysaa sargaal kasta ee xilka laga bedelo imise taliya ururan bedelay imise taliya guutaan la bedelay imise taliya qaybaan la bedelay dhammaan sargaal kasta oo la bedelo hadduu hal gaari la tago ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maxaa u haray xildhibaankayga qaaliga suurtagal ma taasna waxay keentay gaadiidka mas'uuliyadda qofka marka laga wareejiyo qalabka dawladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ay wadato hub gaadiid iyo agabka kale loo diibay dhammaan inuu ku wareejiyo sargaalka meesha yimid marka gaariga aad tabayso xildhibaankayga qaaliga ah waxa wata ninkii basashinkii oo asugu ka soo tagay lagu wareejiyo ku shaqeynay ayaduna taas abnigana wuxuu la wadaagayaa saraakiishiisa mana looga darno mana looga roon xildhibaankayga qaaliga waxaan marka la ka codsanaa maadaama aan anagu aan maanta taliye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hay'adii sharci dejintana aad tihiin mas'uuliyadda aad noo dhiibateen inaad nagu aamintaan uguna kontarooshaan ugula xisaabtantaan marka la waxaan ku leeyahay raal ah wada hadalkayga qalad fahantay xildhibaankayga qaaliga ah taasaan uga gudbaa arinta guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 72aad ka tirsan tahay wuxuu xildhibaankaygu ka dhawaajiyay waa ka warhaynaa muxuu ahay sheegay qalabkoodii iyo waxoodii way dayacan yihiin guutada shanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida aan u maamulno ayaan u maamulnaa agabkooda iyo guud ahaan qalabka ciidanka ee ay gacanta ku hayaana sida looga xisaabiyo kuwa kale ayaa ayagana looga xisaabiyaa daliilo iyo habacsanaan iyo duduleelo way imaa karaan waxyaabaha inaan saxno aan doonayna ama aan saxna bay kamid tahay waa maadsan tahay waxaan aad u jeclaa lahaa marka xildhibaankaygu waaba fiican yahay hadduu dhinacaas u dhigiyeen xildhibaanadayda sharafta badan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed miisaaniyad badan oo gaadiid iyo qalab loogu soo gado inay u ansixiyaan aad u jeclaa lahaa gudoomiye waana ka codsanaa gaadiid badan iyo badan aan heli lahayn markaasna laakiin waa xaalad guud oo jirta kaligood ma ahan guud ahaan markaad fiiriso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xildhibaankayga qaaliga ah ee gobolada jira runtii gaadiidkooda sidaas ugu dayacan yahay dhammaan gobol kasta tag guuto kasta u tag urur kasta tag gaadiidka ay haystaan waa gaadiid kooban oo aan ku filnayn
oo runtii muxuu ahaa ii sheegay u baahan meel walba in muxuu ahaa ii sheegay wax laga qabto waana rajaynaa insha Allah tacaala wixii dalka soo galay xooga dalka Soomaaliyeed soo galan qaybta ay ku leeyihiin ayaan uga qorshay doonaa weyna gaari hadii Ilaahay ogolaado arinta muxuu ahaa ii sheegay nimanka macaawisleyda oo meelaha kala duwan ku sugan waa run meelo badan ay joogaan dadkaas way la dagaalamaan dadka cadawga ah waa fursado u baahan runtii in laga faa'iideysto qaarkoodna waa laga faa'iideystay qaarkoodna waa lagu socdaa sida aad la socotaan gobollo badan hadda ciidanka laga soo diiwaan galiyay oo lagu soo daray xaaladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taas marka ciidanka hadda aad xildhibaankayga qaaliga ka hadlaysa laftirka hore 102 askari oo kamiduhu waxay qayb ka ahaayeen ciidankii laga qaaday beledweyne oo loo qaaday harqaboobe oo xaaladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halka ku galay oo xerada lama galay muxuu ahaa ii sheegay tababarka loogu xiriyay marka ayagana waxaan isleeyahay waa طبعا فرصتها أيضا ولا جفاء جديد صدقنا هدي إلى هيرادو علمان كي قال لك واحد ناقر شيء سمر هدي أطفي رسبودهان قبل الله تلك حولها كصعدة هي ديوان جلنتا هي طب برهذا كصعدة مركز في رسو واحد ناقر شيء سمر شاسي كاغس وبحياة أنت سبحان الله هي وحين نقر تاموغال كترجمايا عيدك حوجة تلك الصوماليات أيوة كاشان أي وسيرة دورة كاشان دقة يوم محوها يشجع مدح القرن كبا إن أي جودة دونان محوها يشجع هوله هذا حلوان أودود عادي وهوسيسا وعن الربا ولي بتصالح عتنا إدسية أودود سيد عيو هوسيسا مدة حتى قدومي هي قالي قاعدات يا طلعتها هي كسو وريكتي لابا بيلوت لحية تمن اسكري يا وحي كسو لغاية المجال هذا كسمايو وعلى جاية حلبان بدنو حلبان هذا كمية حالة سنين لا سعوداني أوجيه أنت وضح أي صبراوة يو كسمايو وحيقصوا قال الدجال بدن وحاقصوا لما تشان اسكري ننوا وقصوا داو عمي أنتوا دي كلام الوقت أي قصوا عدين وحيكون يمدن المجال هذا براوة مركا أود عدو قماشة سر كدري مكتا إن يسوي واحد يقولون أيسان هين نفتر كأنه هل كان الله وقب حني وعنكو تقني بوله بورته وعنكو تقنا ماشى اللي يرادو محاس وعنكو مرنا مطبان وعنكو تقنا بلدوينه هنا عكلا مركا كفيرنا أيضا ساسا ندريمي كرنا لكن وحنا الله قال ما هي وجبهتنا أود وين أو مال فدي ضمالهن ووحور وريجايا أو مالها قاردباتوين كجيسنا يصير مرة كقاربة ومضى الصوماليات أي قرحية يوحلا متكا أي يقول دباتيا مركا واسكتا أود واحد أو وين أو معهن يعني أو نفل معه حلبان شريف حلبان كي قالقة وحور محوها يشاق إرالتي لوء من حلبان نضح سيدي محوها يشاق أي محوها يشاق أي نقطين ضد أي جلسك إلاليناي وعرب أرتا ماشا سنة عدي وحلا إلاليناي أما عدة لسك إلاليناي معهن استاف كحلبان نضح لسعود استاف كحلبان نضح لسعود وحي كتر سنة عيدا ماذا قلب كسيدة أيضا أبنك كالدواني كتر سنهين معهن أيوغو إني عدويهين لكن وحلا إلاليناي وحي هذي حين دابك حرن oo abniga madaxtooyada laga sugaayay sida maalin dhaweed badacday oo ay dariiska ciidamada soo gashteen ay lug ugu soo dhax galeen in muxuu ahaa ii sheegay la ilaaliyo ciidamo socda oo lugaynaayo oo xayndaabkaas ku jira in la hubiyo sababtaas ayaa istaafyada loo dajiyay laakiin macnaheedu ma ahayn in ayaga la iska ilaalinayo ama ayaga muxuu ahaa ii sheegay ay tahay waxa la ilaalinayo inay yihiin taas ma ahan runtii marka aydan waxaan isleeyahay dhinacaas ay jirtaa waxa ay soo har mas'uuliyadda runtii xildhibaanada golaha shacabka iyo guud ahaan mas'uuliyiinta qaranka waxa naga saaran mas'uuliyad abniya naga saaran oo islamida waxa naga saaran muxuu ahaa ii sheegay waajibaadka aan fulinayno qayb kamid ah waaye runtii ma islihi marka muxuu ahaa ii sheegay taasna inay jirto dayacaad aan muxuu ahaa ii sheegay ugu talagalna xildhibaanada ama aan ugu talagali karno ama mas'uuliyiinta kale aan ugu talagali karno marna ma jirto وعرب الله كنا عديو أرنت محوها يشجع استافيدا أسمر كلينا كعلي استافيدا ما دام عددي أسوأ لا يدعي أو أهل كأكد عدي وجددا لوجوجي أو هكذا كلوجلي وقتك قوبا بارستي يوسعتا إيوه سي لو كانوا قرشيال ما دام عددا عن دور مرة ينقص الله بتوحون وحلوجة بدلي كرر أرنتان هل كم يلدور كمركز الله بتي تاس أيها وحي كانت إن محوها يشجع هكذا كانوا يمادو
isu socodka marka xildhibaanada gudbaaya oo iyaga ka soo gala sideeda checkpoint ka soo gala checkpoint-ka kale u gudbaaya ama magaalada kale u sii gudbaaya taas mar kale aan ku celinaa amaran ka bixinay xildhibaanku markuu ka soo galiyo tiyaatarka ama markuu ka soo galiyo 50 May ee uu rabo inuu ka gudbo sayidka ama uu rabo magaalada inuu sii aado staff laga reebayo ma jiro haddii ay dhacdaan hadduu xagga ka soo galo dhinaca kale u gudbaayana sidoo kale way aydana haddii ay dhacday qaladaad mar dhacay ama meel farsamo xumo dhacdayna amar baxay taas uma aysan ahayn haddii farsamo xumo dhacdo ay jirtana waa saxayna xildhibaanada qaaliga taas dib aan u saxayna laakiin xildhibaanku inuu madaxtooyo soo galaayo oo gudaha meeshan gudaha staafka lagu dajinaayo taas waaye mid la diidanaa ama muxuu ahay sheegay hawshii xoga meesha ka socotay arqalada naga gelinaysa marka aydan waxaan isleeyahay muxuu ahay sheegay waxaan heli doonaa xal hadii ilaahay yiraahdo arinta isaafiyada marka waxaan u maleynayaa in laga qancay hadii ay wali ay daliila ay ka jiraana diyaaran u nahay idin sidoo kale waaye xildhibaankayga qaaliga dhammaan checkpoint-yada laga soo galay haddii xildhibaanku uusan soo galayn madaxtooyo gudaheeda ama uusan muxuu ahay sheegay uusan markaas asan u soo staafka ku dajinayn iridka hore ee SYL uusan ku dajinayn staafkiisa uu la gudbayaa wuxuuna la aadayaa meesha uu la socdo ma jirto staaf meeshaas oo la reebay haddii laakiin staafkii lagu dajinaayo checkpoint-yaashii madaxtooyada marka gudaha la soo galo dhinaca kale amni ahaan markaan ka fiirino xildhibaanada qaaliga markaan staaf hadda soo kaxayno ciidan soo kaxayno ee aan ku dajino meesha la yiraahdo Kashmir waxaa la socotaan dhinac walba u lugaynaya waxa meesha la dhigo waa askar kii cadawga ahaa iyo kii kale oo staafka ahayna lama kala garan karo marka arintaas ayada ah staafyadu meeshaas ku maharayaan arinta kale ayadana waxaan marka la rabaa inaan ku celiyo ah xildhibaanada gudaha degan ama mas'uuliyiinta kale gudaha degan staafyadoodu amaran ka bixin ayagana inay la soo gudbaan oo guryahooda la soo galaan maadaama ay gudaha degan yihiin ayadana waa xaqeejinayna waana dabagaleynaa xildhibaan nuuraan oo yiri isbedel ciidamada lagu sameeyo way fiican tahay laakiin xildhibaankayga qaaliga ah waxaan aad iyo aad u jeclaa lahaa miisaaniyadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in la kordhiyo annagana ciidan fara badan oo aan awood u heli karno rotation in aan u sameeyno ciidamada oo kuwa meesha jooga iyo soo qaadno aan kuwa kale ku bedeli karno heerkaas in la gaarsiiyo laakiin kuwa maanta aan haysano waxa laga yaabaa inaysan suurtagal ahayn inaan guuto dhan iyo meesha karno soo xirayno guuto kale ku bedelno marka taas waxaan isleeyahay marxaladaha jira iyo duruufaha jira keenay ayadana in ciidamadii muddo dheer ama waqti ay meesha ku sugnaadaan oo waajibkaas ay muxuu ahay sheegay ay ka sii fuliyaan xildhibaan farxiyo oo dhacday muxuu ahay sheegay ciidamada beledweyne laga qaaday oo la yiri lama qalabayn waxba lama siin xildhibaanadeed qaaliga waa sax waa runteer ciidamadaas waxa tababar uga socday magaalada beledweyne in muddo tababar uga socday kadibna waxa la qorsheeyay maadaama adinka naftirkiinuba hadda aadna weydiinaysaan maxaa ciidanka la isugu dhafi laayahay si ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidan integration oo u noqdo ciidankii lagu xireynayo meesha la yiraahdo harqaboobe ayay qayb ka noqonayeen saas darteed marka dharkii ay tababarka uga baxayeen way haysteen laakiin qalabkii kale iyo dariiska ciidanka maadaama wali uu tababarku u dhinaa haddana ay aheeday inay xirada harqaboobe tababarkoodii dheeriga ay ku qaataan sidaas ayaa loo qaaday haddana tababarka halkaas uga socda ciidamada halka tababarka uga socday qayb ka yihiin ayagana muxuu ahay sheegay markuu tababarkoodu u dhamaado waxay qayb ka noqon doonaan ciidamada la qalabaynayo haddii Ilaahay yiraahdo oo xiradaas ku xiraysa مع وسليدا أيضا إن شاء الله تعالى أيضا سيدا سوكالي وأنك فايدة يسدونا هراي كو أنوغا هاللينا لمتهي آدي آدي ومهسلتين